eedeysanayaashan oo bishii 8aad ee sanadka lagu soo qabtay duleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa iyaga gaari ay wateen waxay dacwadoodu muddo ka socotay maxkamadda degmada Hargeysa waxaana maxkamaddu ay ku heshay in sifo sharciga baalmarsan ay u jareen 218 geed oo gorool qoyana kaasi oo ay ku talagaleen in ay qaab ganacsi ahaan u iibgeeyaan muddadii ay socotay dhageysiga dacwadda saddexda eedeysane waxa maxkamadda horteeda la keenay cadeymo muujinaya eedda loo haysto kuwaasi oo isugu jiray markhaatiyaal iyo dhidkii qoyaneed ay jareen markii ay dhamaatay dhageysiga dacwadda eedeysanayaasha waxa xukunka ay maxkamaddu gaadhay ku dhawaaqay garsoore Saleebaan Cabdi Nuur oo kamid ah garsooreyaasha maxkamadda degmada Hargeysa oo taariikhdu tahay 25 bishii 9aad 2017 waxaanu go'aaminay maxkamadda degmada Hargeysa ay go'aan ka gaadhay dacwadda lambarkeedu yahay 683 ee 2017 oo ku eedeysan yihiin saddex eedeysane oo kala ah Gaani Qorane Cabdi Dheere labaad Naasir Xaaji Cali Wacays ina Shukri Axmed 40 jira iyo ka saddexaad oo Naasir Yuusuf Yaaxeen ina Ruun Cabdi 45 jira saddexda eedeysanaha koobaad ee ah Gaani Qorane Cabdi Dheere wuu baxsaday oo waa maqane isagoo maqan ayaana xukunkiisa la gaaray eedeysanayaasha waxa la soo xiray 22 bishii 8aad 2017 iyagoo ku eedeysan qodobada kala ah 15 faqradiisa koobaad 8 faqradiisa koobaad iyo tiisa labaad oo ah xeerka lambarkiisu yahay 69 ee soo baxay 2015 magaciisuna yahay ilaalinta iyo daryeelka kaymaha iyo duurjoogta qaranka Soomaaliland xaashida eeraaliyaha markii loo akhriyay eedeysanayaasha sida ku qoran qodobada 103 104 xeerka habka ciqaabta waxa ay ku jawaabeen ma qabno dambiga markii loo gudbay marxaladda oogista dacwadda sida ku xusan qodobada 110 114 xeerka habka ciqaabta xeerlaaliyuhu isagoo waajibkiisa gudanaya waxa uu ku soo dhaweeyay maxkamadda saddex marag oo kala ah askari booliisa Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed 45 jira iyo isuduwaha wasaaradda deegaanka Jaamac Xuseen Maxamed iyo Axmed Yuusuf Khayre oo abaarihi dacwadda saddexda marag iyaga oo dhaarsan oo kitaab gacanta loo saaray maxkamadda horteeda waxa ay si shakilaan u cadeeyeen in dambi dhacay dambigana ay galeen saddexda eedeysane ee magacyadooda aan idin sheegay sida ku xusan qodobka 163 xeerka habka ciqaabta markay halka marayso waxa loo gudbay marxaladii isdifaaca eedeysanayaasha sida ku xusan qodobada 116 ee xeerka habka ciqaabta waxay ku jawaabeen maadaama aanu wixii sidno nalaguna cadeeyay qiraalayaan nahay haddaba maxkamaddu iyadoo ku go'aan qaadanaysa amuurahaasi waxa ay ku dhawaaqday wixii ay go'aamisay ay gaadhay ee go'aan ahay lagu xukumi lahaa eedeysanayaasha labada eedeysane ee laba Naasir marka laga reebo ka maqanaha ah waxa lagu xukumay midkiiba 2 sano oo xarig ciqaabeed ah iyo ganaax dhan midkiiba $1,000 iyo dhirtii ay jireen oo 218 geeda oo ay beeraan eedeysanaha saddexaad oo magaciisu yahay Gaani Qorane Cabdi Dheere oo isagu maqnaantiisa lagu xukumay waxaana lagu xukumay 2 sanadood iyo 6 bilood oo xarig ciqaabeed ah iyo $1,000 oo ganaaxa geestiisa gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Beergeer oo isna ka hadlay xukunka ay maxkamaddu gaadhay ayaa ka sheekeeyay go'aano hore oo ay maxkamadda degmada Hargeysa ka gaadhay dacwado ka dhana deegaanka waxaana fariin adag oo ku wajahan dhowrista deegaanka u diray shacabka Soomaaliland dambiile kasta
oo doonaya inuu uga faa'iideysto naftiisa geed umadu wada leeday oo xooluhu la leeyeen waxa la marin doonaa ciqaabta maanta la mariyay iyo ciqaab kale oo ka sii adag dhinacoodana isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga gobolka Maroodi Sheekh Jaamac Wali Maxamed aadan salaad oo ah ku-xigeenka xiriiryaha guud ee qaranka iyo xasan yuusuf faarax maamulaha caasimadda Hargeysa wasaaradda deegaanka iyaguna goobjoog ku ah dhageysiga dacwadaasi ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay maxkamaddu gaadhay ayaan ugu mahadnahay maxkamadda degmada oo nala shaqeysa si fiican oo ah xukunkii saddexaad ama labaad uu yahay kan maanta dhacay ee lagu fuliyay xasuuqayaasha dhirta waxaan kaloo mahadnaqayaa xeer ilaalinta gobolka oo iyaduna nala shaqeysa hadhow habeen marka aanu kii soo qabanana si hufan oo wanaagsan iyaduna waan baqaada maxkamadda sharafta leh waxaanu ku amaanaynaa oo ku bogaadinaynaa xukunka ay ka gaadhay ciddii gashay faldambiyeedka ku xusan xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ugu horeyn ilaahay oo noo suurtageliyay in maanta aanu fulino qayb ka mid ah shaqadeedii iyo waajibaadkii qarankan u haynay marka labaad waxaan u mahadnaqayaa maxkamadda degmada Hargeysa oo alaabo wasaaradda deegaanka si weyn ula shaqeysa kuna waajibaadka qaranka ay u haysana aad ay ugu taagan saacad walba sidoo kale waxaan fariin uga dirayaa ganacsatada suuqa Hargeysa ku ganacsada ee qorsuuliga kontrabanka lagu keeno iyagana waxaan soo goyn doonaa maxkamadda ka codsan doonaa inaan waarano loo gooyo nin kasta oo ka ganacsada qorsuuli oo aan ku qabanayso ganacsanaya maxkamadda horkeenna agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga Maxamed Cilmi Xuseen oo isla markii dambe la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ciddii lagu qabto jaridda dhir qoyan waxaan doonayaa in aan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la socodsiino inaanay u dulqaadan doonin wasaaraddu geed qoyan oo dambo ama magaalada gudihiisa ahaado ama miyigeeda ahaadee la jaray inaanay u dulqaadan doonin magaalada laftigeeda waxaan ku wargelinaynaa inaanay taaban karin shirkadaha dhismaha iyo dadweynaha kale ee dhirta ay ka hor baxeen ilaa ay ogolaasho ka helaan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta